حبينا بدن بعد هرودوي هم كسحدو هرودوي فيرتاي faahfaahin waxaa iga siisaa deegaanka cusub maanta wixii ka dhacay deegaanka magacayga waa cali ismaan mafahant deegaanka cusubna waa hawaaytay saakay qawaarijiya hawaaytay waxay soo qaadeen weerar gaadma ah oo qarax ku bilowday kabacdi ciidanka xoogga iska waxaan sameynay iska xoojin iska caabin adagaan sameynay mafahant waa gartay ilaa haddana hawaaytay wax meel la iskuma sheego ciidanka hal galcad ka dago hal aadayba laga qaarba hawaaytay hadda waraysi saas oo xoog saas kama adiga laftirkeyga dhaawacaan meel ku jira ma fahad waa gartay dagaalka ma shabaab baa idinku soo qaaday mise idinkaa qaaday ayakaa soo qaado dagaalku qaraxu ku bilowday waa gartay kadib maxaa xigay kadibna iska caabin ciidana xigtay mar waa ayakaa la jabshay markii dambe ciidankii waxay sameynay difaac looga baxo taliyaashii saraakiisha ku dhaawacanto adiga ma khasaare ka dhashay ay khasaaraha soo gaaray dhanka ciidanka dawladda iyo khasaaraha al-shabaab soo gaaray maxaa noogu sheegi kartaa iyo khasaaraha shabaabka ay kuwaxooda waa qartaan laakiin halkayna waa iska waxaa waaye aynto waaye khasaaraha noogu weyn waxaa waaye inay 5 baawur horta waa ay ka wato waa gartay 5 baawur ay watay maxay kala ahaayeen baawur cabdibilayaal cabdibilayaasha oo ciidanka oo isagoo hadda la keena waa gartay halkay u ka xisteen 5taas baawura waxay u ka haysteen dhinacan iyo ceel caasiya laga sheegay waa gartay dagaalka imisa saacad ayuu socday dagaalku wuxuu socday adiga saaka nuska saac oo nagu bilowday ilaa 5 saac 6 saac waa soo gaaray haye gacan ku heynta deegaanka cusub yaa ku sugan ma al-shabaab baa la wareegay ma ciidanka dawladda jooga faahfaahinasi deegaanka waxaa ku sugan ciidanka xoogga hadda ku sugan oo saacan waqtigan aan kula hadlayo anaga ku suganba waa gartay adiga ma ciidanka macawisleyda ka tirsan tahay mise ciidanka dawladda aniga ciidanka macawisleyda aan ka tirsanahay xalay ay leer ka baxnay lugaan ku baxnay fahad hay adiga maxaa khasaaro ku soo gaaray dhankaaga maya dhankayga askarta waa caafimaad qabtaa anaga gurmad waxaan ku soconay dhinaca xagga oo waxaan ahayn ciidan infantry oo ku bax waa gartay xalay infantry ku baxnay saakay meelaan joogna meel la leeyahay hawaaytay inasreed waxaanu dhaceen khasaarahan ciidanka soo gaaray waa gartay al-shabaab waxay sheegeen in dad nool askar ay qabatay arrintaas maxaa ka jira arrinkaas xaqiiqadeeda lama hayo laakiinse dadka hadda deegaanka ku sugnaayo oo hadda aan ka wareysan iyo dadka nala soo hadlay dad nolola waa sheegayeen laakiinse hadda ciidankii isagoo dhammaystiran ayaa la sheegay laakiin ciidanka ay wataan ciidan maxaabiista waaye ciidan xirraay waaye ciidan askari dagaalaya oo dagaal ku jira ma ahan sidan xogta aan ku helna haddana dagaalka yaa ku itaal karoonaa ma dawladda ma al-shabaabba markaad fiirisid dagaalka iyo siduu u socday iyo dagaal ciidan fadho oo meel degan laftarkaaga waa dareemi kartaa oo haddana qarax lagu soo galay niman difaaca looga baxo waaye difaacana in laga baxo waxaa kasbay saraakiisha howlaha kala waday hadda ay ku dhaawacmeen ay difaaci ka baxeen waxaa imaan karta khasaaro dhanka ciidanka soo gaartay laakiinse ciidanku ilaa 6 saac ay dagaalka gaarsiiyeen nuska saac uu bilowday laakiin ilaa 6 saac dagaalku waa socday difaaca sababta looga baxay maxay tahay oo ciidanka ugu baxeen difaaca qarax manaa lagu soo galay oo nin amba gaadiid intaba ismeedaamyo caadi waa soo geliyay gaaray qaraxa waa soo geliyay intaasaa looga baxo 11 qarax ay ku soo galeen xerada waa gartay marka iga waran hadda xaaladda waa sidee deegaanka cusub deegaanka hadda annaga ku sugan saacan baan kala soo hadlayo hay xagga gala marka waa nidaamkeenu waa saxan yahay oo macnaha loogama bixino magaalada ciidan aan ma haysaad wixii inta dhaawac ahayd inta dhimashaa annaga hadda kor joogno waa gartay ma jirtaa cabsi ama kale aad ka qabtaan in mar kale al-shabaab idiin soo weeraraan
iyo cabsi saas hadda macnaha ciidan beriga la gala waa dareemi kartaa cabsi saasana nama hayso waxaan nahay rag inay dhintaan usoo baxno cabsi waa jiri kartaa laakiinse wixii soo weeraro inaan iska celina hadda aan diyaar u nahay maxaad ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa intaasba macnaha inayna macnaha dhabarjab annaga nagu ahayn ilaa waagana aan cusweyna aan u taagannahay inaan difaacno aad u mahadsantahay adaa mudan